Salaamullahi calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada Somali Islamic TV xilli kastoo idin tahay waxaan horey u ballan qaadnay in aan idin soo gudbinayo dadka ugu dhaadheer Afrika ama qofka oo la oran karo isaga ugu dheer Afrika maanta waxaan doonayaa in aan idinla wadaago idin soo gudbiyo qofka ugu dheer Afrika ama dadka ugu dhaadheer Afrika markaan leeyahay dadka ugu dhaadheer Afrika ma aha hal nin ma aha laba nin ee waa laba saddex nin iyo wixii ka sii badanba laakiin waxaan doonayaa maanta inaan idinku soo gudbiyo oo kaliya saddex nin oo kamid ah dadka ugu dhaadheer Afrika ninka koobaad ee Afrika ugu dheer waa Suleymaan Cali Nashuush oo u dhashay dalka Liibiya kuna dhashay magaalada Taraabulis sanadku markuu ahaa 1942 kuna dhintay isla magaalada Taraabulis sanadku markuu ahaa 1991 wuxuu dhererkiisu gaadhayay 2 mitir iyo 46 sentimitir buu gaadhayay wuxuu ahaa nin ciyaaryahan ah oo kubadda aad u ciyaara waxaana lagu tiriyaa Suleymaan Cali Nashuush ciyaaryahanka adduunka soo maray ee ugu dheer mana jiro ciyaaryahan ka dheer ama dhererkiisa soo gaari kara Suleymaan Cali Nashuush waa uu geeriyooday 1991 Allah u naxariisto ninka labaad ee adduunka oo la oran karo Afrika ayuu ugu dheer yahay waa ninka loo yaqaan Ibrahim Taqiyullah oo ku dhashay Maghrib al-Islaami Ibrahim Taqiyullah mararka qaarkood waxa lagu hormariyaa in uu ka dheer yahay Suleymaan Cali Nashuush waxaana lagu tiriyaa inuu yahay ninka labaad ee adduunka oo dhan ugu dheer marka laga yimaado waxaana lagu tiriyaa inuu ka dheer yahay oo kaliya ninkan hore uga soo hadalay Suldaan Kusiin Ibrahim Taqiyullah waa nin u dhashay Maghrib dhererkiisuna wuxuu gaadhayaa 2 mitir iyo 49 sentimitir mararka qaarkoodna waxa dhaha 2 mitir iyo 46 sentimitir oo waxay dherer leeyihiin ama isku mitir yihiin Suleymaan Cali Nashuush wuxuu ku noolaa Paris caasimada Faransiiska ninka saddexaad ee ugu dheer Afrika waa nin u dhashay dalka Mozambique isagana dhererkiisu wuxuu gaadhayaa intuu gaadhayo Suleymaan Cali Nashuush wuxuuna gaadhayaa 2 mitir iyo 46 sentimitir waa saddexda qof ee la oran karo Afrika way ugu dhaadheer yihiin laakiin taa macnaheedu maaha Afrika ma joogaan dad kale oo dhaadheer oo saddexda ka ahayn waxa jooga kumaankum Afrikaan ah oo dhaadheer oo xitaa dadka ugu dhaadheer waxa lagu tirin karaa inay ku jirto Soomaaliya oo waxa jira nin Soomaali ah oo isaguna dheer insha Allah mar baan isku dayi doonaa in aan ka hadalno ninka Soomaaliya ugu dheer laakiin ma ballan qaadayo insha Allah haddaan ka hadli doonana waad arki doontaan idanka Ilaahay intaas maanta mowduuceenu ku eegahay mowduucan oo idinka iimaanaya Somali Islamic TV channelka dad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo guuleyso salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh